Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kani waa mid ka mid ah ragga taajiriinta ah ee haysta suuqa tiknoolajiyadda ee adduunka, gaar ahaan midka Shiinaha. Waa nin xisood badan, in badan wax laga garamayo. Sirihiisa shakhsiyadeed waa kuwo qarsoon. Waa nin aad u taxadara, isla markaana jecel in uu qarsado sirihiisa iyo guud ahaan xaaladiisa nololeed. Yaraantiisii wuxuu ahaa wiil aad u xiiseeya barashada cilmiga kombiyuutarka, wuxuuna ku dhashay ninkani oo ah milkiilaha iyo aasaasaha shirkadda Tencent, isla markaana lagu magacaabo Ma Huantianich, kuna magac dheer Bony Ma, gobolka Shaoyangi, 29 bishii Oktoobar sanadkii 1971. Wuxuuna ka dhashay qoys faqiir ahaa oo ku noolaa magaalada Shawto. Aabihii wuxuu ahaa nin shaqo-raadis badan. 4 jeer ayaa shaqo loo diiday, taas oo keentay in qoyska 3 mar laga saaro guriga ay kirida ku deganaayeen. Si uu odayga shaqo uu ciyaalkiisa ku masruuf u helo, wuxuu dhowr jeer isaga kala gudbay gobollo badan oo ku yaala dalkiisa. Bony Ma ayaa ahaa yaraantiisii mid mar walbaba garab taagnaa aabihii, oo wuxuu ahaa wiil jecel la shaqaynta waalidkii, taas oo kolkii dambe anfacday. Waayo wuxuu aabihiis ka bartay xirfado badan oo lagu xalliyo mashaakilaadka. Sidoo kale wuxuu ka faa'iiday aabihii isku biimaynta aagaga cusub ee laga heli karo macaash iyo faa'iido badan. Haddaba Bony Ma markii uu ka soo qalin badashay dugsiga sare, wuxuu sanadkii 1989 ku biiray jaamacadda, gaar ahaan kuliyaddii uu yaraantiisii aad u xiisayn jiray ee kombiyuutarka. 4 sano ayuu wax ka baranayay jaamacadda. Kolkii dambe wuxuu jaamacadda ka qaatay shahaado baaj ah oo dhan kombiyuutarada ah, kadibna wuxuu galay suuqa shaqada. Xilligaasi waxaa yaraa fursadaha shaqo, wuxuuna Bony Ma si dhib badan ku helay shaqo, taas uu ka helay shirkadda isgaarsiinta ee dalkiisa. Gaar ahaan wuxuu ka mid noqday shaqaalaha waaxda cilmi-baarista iyo horumarinta internetka ee shirkadda isgaarsiinta dalkiisa hooyo ee Shiinaha. Subaxii ayuu soo shaqo tagayay, habeenkiina gurigiisa ayuu ku laabanayay. wuxuuna mushaar ahaan u qaadan jiray bishii lacag gaaraysa $170. Bony Ma kuma filnaan lacagtani, waayo bil walba wuxuu gelayay dayn hor leh oo fara badan, taas oo markii dambe ka dhigtay nin dayn badan lagu leeyahay. Aad ayuu ugu murugooday deymaha faraha badan ee lagu leeyahay, wuxuuna isweydiiyey goorta uu bixin doono deymahan. Bony Ma ayaa dib u xasuustay shaqaalnimadii aabihii iyo shaqooyinkii tirada badnaa uu qaban jiray, iyo haddana sida ay ugu noolaayeen nolol dayn badan, guri kira ah iyo gurguritaan tiro badan. Haddaba Bony Ma ayaa naftiisa la tashaday, waxaana u soo baxday inuusan marin waddadii qallafsanayd ee fashilka ahayd ee aabihii ku lugo'ay. Waa qalad labaad haddii aan maro waddadii aabbahay ku hungoobay, ayuu dhahay Bony Ma. Sidaas daraaddeed Bony Ma ayaa u yeeray 3 ka mid ah saaxiibadii, wuxuuna ku qanciyey inay abuurtaan shirkad gaar ah. Saaxiibadii ayaa ku qancay soo jeedinta saaxiibkood Bony Ma, waxayna 4tooda uu Bony Ma horkacay samaysteen sanadkii 1998 shirkadda maanta qabsatay suuqa tiknoolajiyadda Shiinaha ee lagu magacaabo Tencent. 4tooda ayaa shirkadda shaqaale ka noqday. Haddaba dunidani waxaa la isku dhaafay hal abuur. Haddii aad hal abuur la imaan weyso, haddaba waxaad iska ahaanaysaa takhliidi, oo wixii dadka ka soo hara ayaad iska urursanaysaa. marmarka qaarna waaba lagu qabsanayaa. Bony Ma iyo saaxiibadii oo ka faa'iideysanaya khibradoodii hore ayaa sanad kadib hindisay barnaamij yar oo dhanka internetka ah oo la isku dhaafsado fariimaha, kaa oo ay u bixiyeen magaca QQ. Isla barnaamijkan uu Bony Ma ikhtiraacay ayaa u fududeeyey inay isbartaan xaaska uu hadda qabo. Waayo barnaamijkan fariimaha lagu sheekaysanayo ayay in muddo ah ku wada sheekaysanayeen, ilaa kolkii dambe iska fahmeen, isla markaana ku heshiiyeen in ay isguursadaan. Haddaba Bony Ma 3 sano ee ugu horreysay shirkaddiisa ma helin wax faa'iido ah oo la sheegi karo. Wuxuu la kulmay caqabado badan. Waxaa la isku dayay in laga saaro suuqa. Qaar ka mid ah madaxda shirkadaha waaweyn inta ay xafiiskiisa u imaadaan ayay ku dhahayeen, naga iibi shirkaddan yar ee makortada ah ee aad suuqa dhex taagan tahay habeen iyo maalin. Laakiin Bony Ma waa diiday inuu shirkaddiisa gado.
asigoo xaaladaasi ku sugan oo shirkadiisa kori la'dahay ayuu markii dambe suuqa darsay waxaana u soo baxday in shirkadiisa leedahay mustaqbal wanaagsan caqabadahan had hor taagan yihiin kuwa asiga naftiisa lagu tijaabinayo sidaas daraaddeed Bonny Ma ayaa wixii lacag ah uu haystay ku qarash gareeyay xayisiin wuxuuna eedeh badan ku bixiyay lacag malaayiin dollar ah kadib xayisiintaasi shacabweynihii Shiinaha waxay si ballaaran u bilaabeen in ay adeegsadaan barnaamijyada shirkadda isla markaana ay soo booqdaan bogga internetka ee shirkadda haddaba shirkadda waxay kor u soo kacday oo suuq tiknoolajiyadda ee Shiinaha qabsatay markii ay soo saartay sanadkii 2010kii abka lagu magacaabo WeChat ka oo aad wada garanaysaan isla markaana maanta dunida si weyn looga isticmaalo una dhigma WhatsApp-ka iyo Messenger-ka laakiin wuxuu dheeryahay labadan adeegyo badan oo kala duwan waa app ku suuri gelinaya in aad wax ka baarato internetka dhexdiisa waa sida Google-ka oo kale laakiin nuqsadiisa waa Shiinays oo afafka kale wax ma ku baari kartid wuxuu kale ku suuri gelinayaa abkan WeChat haddii aad joogto gudaha dalka Shiinaha in aad ku adeegato oo wax ku iibsato qaan sheegtadana isaga bixiso haddaba abkan adeegiisa ayaa gudaha dalweynaha Shiinaha aad ugu faafay wuxuuna ka sare maray dhammaan abab kale sida WhatsApp-ka Facebook-ga iyo Messenger-ka waxayna shirkadda abkan WeChat dartiisa ku hantisay lacag malaayiin dollar ah oo faa'iido ah hadda dadka adeegsada abkan WeChat ee ku nool gudaha dalka Shiinaha waxay kor u dhaafayaan 1 bilyan oo qof inta kuma qancin Bonny Ma ee wuxuu go'aansaday in uu galo suuqa game-ka sababtoo ah wuxuu arkay in suuqani uu leeyahay macaash badan iyo mustaqbal wanaagsan sidaas daraadeed waxay shirkadda samaysay sanadkii 2018 PUBG oo mobilka lagu isticmaali karo sanad kadibna waxay shirkadda ciyaartani ka macaashtay 1 bilyan iyo bar dollar wuxuuna noqday ninkani Bonny Ma qofka labaad ee ugu hodansan dalka Shiinaha waxaana hadda hantidiisa lagu qiyaasaa 53 bilyan oo dollar haddaba Bonny Ma ayaa lacag malaayiin dollar ah ku tabarucay dadkiisa Shiinaha ninkani waa qof aad u xishood badan sida aan hore u sheegayba sidoo kale waa nin aad isu ilaaliya sirihiisa gaarka ahna aad u qarsada wuxuu Bonny Ma na tusiyay in ay guush u baahan tahay go'aan qaadasho wanaagsan geesinimo iyo in naftaada aad ku kalsoon tahay haddii aadan naftaada ku kalsooneen galabta ayaad fashilmaysaa oo meel dheer gaari maysid qofkii aqoon iyo kalsooni isku darsadaa wuxuu awoodi karaa in uu guusho doono gaaro siday doontaba ha u adkaatee